halkan waxaan waraysi yaroo kooban kaga qaadaynaa maxamed cabdi raambe oo afhayeenka kulmiye ah anigoo ah maxamed xamuud yuunis maxamed sidaad u aragtaa dhacdadan soo noqnoqotay ee dadkan reer Soomaaliland ee ka dhoofaya eriboodada ee dib looga soo celinayo بسم الله الرحمن الرحيم محمد aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalahayna halkan idinku kulantay waa arrintaasi in badan bay soo noqnoqotay runtii waana arrin aad iyo aad u baahan in si urgent ay dawladdu wax uga qabato oo loogu kaco waxa weeyaan arrintan muddo soo noqnoqonaysay dad fara badan hooyooyin fara badan caruur fara badan ayaa eriboodada laga soo celiyay shalay doraad tii ka horeysay inta waxaanu maqlaynay inay dadku cabasho fara badan ay soo kordhayso maalinta ka dambaysa ay cabashadu soo kordhayso laga qabo eriboodada xukuumadda Soomaaliland hore wuxuu sheegtay inay joojisay fiisayaashii dadka lagu soo rogay laakiin waxaad moodaa inaanay diyaaradan Imaaraadka iyo Fly Dubai inaanay wali dhag jalaq u siinin oo dadka halkan lagu ciqaabayo oo hooyooyinkii iyo aabayaashii aad ka u dadaalay carruurtooda doonayay inay waddanka ku celiyaan aad iyo aad ka u shaqaynayay carinka ka shaqaynayay basaska ka shaqaynayay clinic ka shaqaynayay intii yareeda gunnada ay ururinayeen inta badan ururinayeen sanadada badan ay ururinayeen ay doonayaan inay mar un carruurtooda ay waddankii ku celiyaan in markay lacagtii tigidhadii goosteen eriboodadii tageen tigidhadii laga khasaariyo $1,000 ay $1,000 ay halkaa ku luusaan carruurtii yareeda ay ka niyad jabto waxaan moodaa inuu barasharkaasi soo kordhayo xukuumaddana waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa aad iyo aad aan weliba si dhaqsaa ugu soo jeedinayaa inay tallaabada sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka qaado labadan saddexda cisho ee soo socda oo marka ugu badan ay dadka reer Soomaaliland waddanka tagayaan iskuuladii fasaxii waa bariya wixii ka dambeeyay bilaamayaan yaynaan dadka faraha badan ay tagayaan yaan la niyad jabinin yaan lacagtooda la khasaarinin intii badnayd waxay ururinayeen waa inay dawladdu ay dhug u yeelataa arrinkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabaa diyaaradan Fly Dubai iyo Imaaraadku haddaanay u hoggaansamaynin amaradeenna innagaa waddan kale waa inaynu joojinaa waa inaynu waddanka ka mamnuucnaa waa inaynu liisanka kala noqonnaa haddii maamiirta ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibaddu ay soo saaraan aanay qaadanayn midna waan sheegayaa dadkan yaa loo warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigrationku waa su'aal furan weeyaan waxaa ku taalla dadka reer Soomaaliland waxaa meesha ku jirta yaa Soomaaliland qofka halkan ku dhashay 1992 iyo 1992 wixii ka dambeeyay aan weligii Soomaaliland aan arag waxa ugu qoran baasaboorkiisa inuu British yahay uguma qorra inuu Soomaaliya ku dhashay inuu Soomaaliland ku dhashay uguma qorra marka halkaas weeyaan halka ay ku jirtaa arrinta ugu weyn ee u baahan in si dhaqso ah wax looga qabto uma baahnin in la yiraahdo dadka reer Soomaaliland ay double nationality ah carruurta halkan ku dhalatay double nationality ma ay nationality ka yeelayeen markay waddanka yimaadaan hal loo soo sameeyay inta kale laakiin iminka si loogu fududeeyo waa in la yiraahdo qof kasta oo waalidkii uu ka soo jeeday Soomaaliland ama Soomaaliya waa in warqadda si toos ah loogu soo qoraa inay waddankii tagi karaan haddii la yiraahdo dadka Soomaaliland u dhashay baasaboorka ajaanibka sita carruurta halkan ku dhalatay su'aal furan bay ku tahay caddee Soomaalilandnimadaada ma caddayn karayaan marka waxaan leeyahay waa in arrintaas si degdeg ah wax looga qabtaa arrintaasi khatarteeda ay leedahay arrintaasi khasaaraheeda ay leedahay arrintaasi xukuumadda dhabarjab bay ku keenaysaa iyo shacabka reer Soomaaliland si degdeg ah ayaan uga codsanayaa xukuumadda Soomaaliland inay wax uga qabato aad iyo aad baad u mahadsantihiin si fiican waxa weeyaan maxamed arrintani horey u dhacday qoraana looga hadlay xukuumadda lafteedu hadday tahay laanta Soomaaliya hadday tahay wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay wasaaradda arrimaha dibadda arrintaa way ka hadleen si cad bayna u qayaxeen maxaad u malaynaysaa ee haddana dib u soo meesha khaladku ka jira ugu weyn markaan warqadda akhriyo waxa weeyaan qodob baa ku jira oo dhanaya dadka reer Soomaaliland ma baahna wax fiisayaal yaas qofku mayna baasaboorkiisii meel uma kaga talay dhalashadiisa meel ka mid ah Soomaaliland inuu ku dhashay ama Soomaaliya inuu ku dhashay kaasi wuxuu helayaa arrinkaas oo ka garanaya laakiin meesha ugu badan ee la isku haysto waxa weeyaan carruurtii halka ku dhalatay waalidku dhintay carruurtii wax caddaynaya kuma jiraan dawladduna wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigration waxay moodayeen arrinka aad uga fakarinayo u qaaday qaabkii la doonayay inay u dhigaan markay warqadda qorayeen marka waxaan mar labaad aan xilaya in warqadda wax laga bedelo si toos ah loola soo xidho si ka duwan sidii hore loo qoro lagu caddaynayo carruurta reer Soomaaliland ee aan baasaboorradooda aanan ku qorrayn Soomaaliland in arrinkooda si dhaqsaa loo address gareeyo sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto weeyaan arrintu halkaas weeyaan halka ugu badan aan u arkaa waxaan soo jeedinayaa in qodobka lagu bedelo qof kasta oo Soomaaliland waalidkii ka soo jeeday ama Soomaaliya ba hal la yiraahdo way dad badan baa Soomaali ugu qorantaan Soomaaliland baa ugu qorneen baasaboorradooda marka labada qodob in la isku waafajiyo weeyaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan arrinka wax looga qabto
waa tahay waxaa jirtoo kale inaad ii sheegtay in dad badan oo reer somalilanihii ay ingiriiskana ka tageen great britain kuna xaniban yihiin waddamada carabta arrintaas sidee baa loo xallili karaa bay kula tahay arrintaas waa arrin kaleo aad iyo aad iyo aad imanka wariga fakarkeeda leh dadka reer somalilan ee halkan jooga xanuun fara badan ku haysa madaxda xisbiga madaxda kale ee safaaradda dadkoo dhan iminka culays fara badan baa soo fuulay waxaana weeyaan dad baa halkan ka tegay waxay sii marayeen imaaraadka dooxa iminka faamiliya aanu garanayno waxay halkan ka tageen wiig bay sii joogayeen dooxa hargeysay tagayeen dooxa iminka ku xaniban yihiin oo lagu yidhi carruurtiinu ma sidato somalilan fiiso ma sidato dadki waaweynaa baa laleeyahay idinku taga carruurtii ka taga taasi suuragal maaha taasi ma shaqaynayso dadku waa inay waa dhibaato fara badan meelahaasay ku xaniban yihiin dadkii inta badan isii xanimin inta badan inaan isii xanimin waa in aad wax looga qabtaa iyo xukuumaddu aad iyo aad wax uga qabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan weliba 2 cisho 3 cisho soo socotaan waa in arrinkaas si degdeg wax looga qabtaa aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed waxa weeyaan afhayeenkii xisbiga kulmiye waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed maxamuud yuunis aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed waa intaasay ku eegtay haddii ilaahay ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu